Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeennii saameynta wararka aynu hadba ku eegi jirnay ama ku falanqayn jirnay waxyaabaha dunida daafaha dacalladooda ka dhacaya. balse caawa barnaamijyadii hore uu ka gedisan yahay waxaynu kusoo qaadan doonaa nin u dhashay dalka Faransiiska una ah macallin da'da ay ugu weyn tahay 6 sano jir balse ku reebay adduunka. inta ayna barnaamijka gudagelin channelka subscribe saar, videogana like saar, siina share garee si uu u gaadho wacna adiga oo kale. Tibaax aad u weyn macallinkan ayaa da'diisa waxa lagu qiyaasaa 35 jir una dhashay dalka Faransiiska. waxa uu macallinkani dheer yahay macallimiinta idinkuba waad arkaysaan jirkiisa xataa indhahaana ku dhaho waxa marsan taatuun, xataa carabkiisa waxa marsan taatuun, balse waxa uu wax u dhigaa macallin u yahay da'da ay ugu weyn tahay 6 sano jir caruur ah. mar ay telefishinada la hadleen waalidkii dhalay caruurta ayaa waxa ay sheegeen hab isku wada mid ah caruurta oo ka koobnayd 57 ilaa 58 qof inta u dhaxaysa ayaa waxa ay waalidku si isku mid ah uga hadleen tibaax ay ku arkeen caruurtooda ama qarow ama caruurtii ku soo salaalaysa macallinkoodii. taasna aad bay dunida uga yaabisay. ninkan ayaan shaqadiisii laga fadhiisin balse macallinimadiisii sii wata ilaa muddo ay newsiskaasi ka joogaan 4 cisho, balse wasaaradda waxbarashada ee dalka Faransiiska ayaa ninkan rusqad u soo gudbisay ilaa alaan aanu shaqada ka fadhiisan uu sidiisii u shaqeynayo. ninkan ayaa ah nin aan xaas lahayn oo iska bilaa xaasa, shaqadiisii u horeysayna bilaabay 2015 bilowgiisii ilaa waqtigan aan joognana u dhigayay arday da'doodu ugu weyn tahay 6 sano jir. balse dowladda iyo alaamaha waxbarashada ee dalka Faransiiska ayaa marka ay falanqeeyeen baa ninkan waxa loo bedelay in ay macallin uga dhigaan da'da ay ugu yar tahay 7 jir ilaa 8 jir si aan hadba saameyntii ka soo gaadhisay caruurta yar ee ugu weyn tahay 6 sano jir aana ugu yeelan kuwan kale oo qaangaadh ah.